hindisaa socda aynu taa ku gaarayno oo dhanka connectivity-ga aynu ku horumarinayno oo hadda 2 isbuuc ka hor shirkadaha isgaarsiintu waxay saxeexeen MOU hordhac u ah in fiber optic backbone-ka dalku yeesho oo infrastructure-ka shirkaduhuna ay wadaagaan ayay saxeexeen marka dhanka shaqo wanaagsan ayay inooga qabsoontay dhinaca kale oo digital inclusion-ka muhiim u ah literacy-ga digital literacy in dadkeenu ay bartaan xirfadaha digitalka nasiib wanaag waxaynu leenahay dhalinyaro aad u fara badan baynu leenahay dadkii bulshadeenu waxay u badan tahay da'yar badan taasna waxay inoo saamaxaysaa haddii fursadaha la siiyo inay si fudud u baran karaan xirfadaha haddeerna waa bartaan siiba magaalooyinka meesha marka aynu ka liigaynay ama aynu ka dhutinaynay waa dhanka affordable deviceska waxa la yidhaha ama devices dadku ay awoodi karaan inay helaan baahidaa in maanta laga jawaabay aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa ka wasaarad ahaan waxaanan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonto ka faa'iidaysiga teknolojiyadda dalkeenna in dad badani ay ku xidhmi doonaan ama financial inclusion ha noqoto ama digital inclusion ha noqotee in dad badani ay ka faa'iidaysan doonaan ayaanu rajaynaynaa ka dowlad ahaan keligayo waxba ma qaban karno marka in private sector-kiina uu maxaa la yidhaahdaa ayay hawshan ka qayb qaadanayo wayna farax gelinaysaa wixii dhanka iyaga ku xidhanna diyaar baan u nahay si dowladda iyo private sector-ku ay isu kaashadaan oo aynu teknolojiyadda si hufan oo mugle oo miisaanle aynu uga faa'iidaysano wadamo badan baa inooga horreeyey affordable deviceskan ama barnaamijkan oo kale oo suuro geliyey caqabado ka yimaada ayaa jira waxaan filayaa inaynu casharro ka barannay oo innagu hindisahan hadda aynu keennay uu caqabado badan oo waddamada inooga horreeyey ay la kulmeen aynu kasii gaashaamanay waxaan ka xusi karaa in haddii qof dan yara hadda uu telefoon dayn ku qaato awooddiisa ka baxsan oo ayr u bixinayo haddii telefoonkii uu ka lumo ama laga xado inuu jiro nidaam telefoonkaa xidhaya oo aan u saamaxayn qof kale inuu isticmaalo inuu jiro ama dib loogu heli karo inuu jiro intaana laga fikray baan rajaynayaa oo shirkaddu ay ku howlan tahay wax ka qaban doonto dhanka cashuuraha marka horeba cashuurta aynu electronic iska saarno dal ahaan aad bay u yartahay waana tasaamaxday in electronic deviceska dalkeena yaallaan qiimahoodu uu macquul yahay marka dowladduna kuma tala jirto inay dadka ku kordhiso marka waxaan filayaa taasina inay maalgashigan ama hindisahan ay sii saacidi doonto hadalka anigoon badinay waxaan rajaynayaa in mashruucani uu guulaysto ayaan rajaynayaa waxaanan nu dhowaan idam alla arki doonaa saameyntiisa isagoo digital inclusionka dalka ka qayb qaatay isaga oo statisticskii halka hadda nambaradii lagu soo bandhigay faraha badnaa mobile smartphone penetrationka iyo internet penetrationkaba lahaa kor u qaaday ayaan rajaynaynaa marka hadalka idinku madi maayo aad iyo aad baad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu